mashquul dhanka ganacsiga ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee magaalada Afmadow sida warkaan uu ku soo diray Hanad Cabdi Yuusuf. halkani waa saylada xoolaha ee degmada Afmadow dad badan oo reer miyi ah ayaa aroor walba waxa ay keenaan xoolaha noocyadooda kala duwan si markaasi ay u iibsadaan qof walba oo inaga mid ah waxa uu ku nool yahay hilibka iyo caanaha laga helo xoolaha noocyadooda kala duwan waqtiyadii hore waxa iibka xoolaha laga heli jiray qarash hoose hadduu neefka ariga ah uu joogay qiimo lacageed oo gaaraya 700 shilin waxa la kala siisanayaa iminka milyan ilaa 900 shilin taasi oo loo aaneynayo xoolo yari ka jirto suuqa xoolaha ee degmada Afmadow qiimo kororka xoolaha la keeno saylada degmada Afmadow waxa uu sidoo kale sahmeyn ku yeeshay ganacsatada hilibka iibsato mar aan la kulmay ayagoo kawaanka hilibku iibsanaya ayaa waxa ay iga warbixiyeen sida tan xalaa walaalo meesha horta waxa ka jira soo xumo hay'adina waa arigi waa qaali neefka taas oo qasho oo kawaanka agan wax ka qanay malaha magaaladana xaaladda waa arkaysa qolatan ma gana kaliya amar waxa sanada casarka iskiiliya hortan mas'uuliyada laga leeyahay hortan kiilisa sideed ruuxa 20 haafka 10 haafka 15 baa laga leeyahay ruuxa 30 baa laga leeyahay ruuxa wasdinaya arigana xagga marka hatanana waa qaali laakiin waxna dawladda faraan qabto dawladda saan naga bedelo كيبي كوحان كنا بقول لباتن مسكينين لعب يقولوا العالم بس سوق حولها يا حولها قال ها تي حولها بما كسوقن شهران مليون وبيك وكيلنا ما شاء الله Hanad Cabdi Yuusuf TV-ga iyo raadiyaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland degmada Afmadow ee Jubbada Hoose